deegaanka tukaraq ee gobolka Sool ayaa abaara labadii habeenimo ee xalay laga maqlayay dhawaaq rasaas aad u tiro badan dadka deegaanka degan ee aan xiriir la sameynay ayaa noo xaqiijiyay in rasaasaynta u dhaxaysay maamulka Soomaaliland iyo ciidamada uu hogaamiyo Faysal Maxamed Xasan Falaalug ee ku sugan jiida hore ee tukaraq. dagaalkan ayaa dhacay xilli habeenimo lamana garanayo qasaaraha uu geystay ilaa haatan. Faysal Maxamed Xasan Falaalug waanu xiriir khadka telefoonka kala sameynay ayaa noo sheegay in Soomaaliland ay rasaasaynta ku horeysay hasahaatee wax faahfaahin oo dheeriya namuusan siin. maamulka gobolka Sool iyo saraakiisha ciidamada Soomaaliland ayaan arrintan wari ka hadal. dadka deegaanka degan ayaa noo xaqiijiyay in tukaraq ay leedahay sansaan dagaal saaka. sanadihii ugu dambeeyay waxaa deegaanka tukaraq ku wada dagaalamayay maamulka Soomaaliland, Puntland iyo Khaatimo. arrintan ayaa imanaysa xilli ay Soomaaliland iyo Puntland la kala wareegeen maxaabuus ay muddo wada kala haysteen. Muuna Axmed Cabdi, Muuna Maandeeq, Dalka TV, Laascaanood.